Professor Francis Tisaka oo ah wakiilka WHO ee Itoobiya, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dadaalka Itoobiya ku ballaarisay tayada adeegyada caafimaadka iyo helitaankooda uu yahay mid tusaale u noqon kara dalalka kale ee Afrika. Professorka ayaa sheegay in sanadihii la soo dhaafay Itoobiya ay gaartay horumar muuqda oo weyn oo dhinaca caafimaadka ah. waxaana uu tilmaamay in Itoobiya ay dadaal xoog leh ku bixisay sidii shacabka dalku u heli lahaayeen adeeg caafimaad oo tayo leh, isla markaana ay u suurtagelisay in daawooyin iyo qalab caafimaad oo muhiim ah si fudud loo helo. Waxaa kale oo uu sheegay in dalka uu guul weyn ka gaadhay soo saarista daawooyinka gudaha, taas oo kor u qaaday sufilaanshaha qaranka. Ururka WHO ayaa xaqiijiyay inuu si dhow ula shaqeynayo dawladda Itoobiya si loo hubiyo adeeg caafimaad oo tayo leh la isu halayn karo. waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan Itoobiya si loo xoojiyo awoodda dalka ee ka hortagga iyo ka jawaabidda cudurrada degdega ah. Really exciting times for Ethiopia with all the progress they're making in health development. Other countries to come and learn from them. waxaa socda isbeddel weyn oo lagu sameeyay nidaamka caafimaadka. dhanka hawlaha la qabtayna waa mid natiijo wanaagsan leh oo farxad leh. sidaan u aragno Itoobiya waxay ku socotaa wadadii ay u noqon lahayd xarunta caafimaadka iyo soo saaridda dawooyinka dalalka Afrika. shaqada aan wadno waxay tusaale wanaagsan u tahay sida dalalka kale ee nidaamyadoodu caafimaad u casriyeysan yihiin oo kale in loo casriyeeyo. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in WHO ay si dhow ula shaqeynayso dawladda Itoobiya, isla markaana xiriirkaas uu sii xoogeysanayo. We've also worked very closely with the Ethiopian government in the area of emergency or health security. waxaan si gaar ah ula shaqeynaynaa Itoobiya si loo xoojiyo awoodda ka hortagga iyo waajibaadka cudurrada degdega iyo faafitaanka xanuunada. tusaale ahaan waxaan si wada jir ah ula dagaalanay xanuunka safmareenka ee COVID-19 waxaana gaadhnay natiijooyin guul leh. sidoo kale waxaan doonaynaa inaanu aragno Itoobiya oo noqoto xarunta warshadaha dawooyinka ee qaaradda Afrika.